heerka aweys uu jooga maantay inaad gaarto ma jecesha adiga hadda gaar lahay ma fiicnaan leeyahay hadda gaar lahay waa gar ya hadda ay wadaysiin oo xaggeysii waa ni raaca nin aad iyo aad sida aweys camal hayin way hay hadda waxaan ka baxayaa xarunta telefishinka dalsan waxaan idiin hayaa akhbaar cusub oo ku saabsan Ismaaciil oo aad hadda codsigiisa daawateen waxaan rabaa ceelgaabta hadda waxaan joognaa isgoyska ceelgaabta magaalada Muqdisho waa halkii Ismaaciil codsigii aad maqlayseen oo aad daawanayseen uu ka socdo Ismaaciil ay fiicanta aba fiicana hay xaaladda ka war hay anima taqaana idlo ya way hay diyaar ma u tahay maanta inaad na raacdo hay waxbarasho iyo ka waran hadii lagu geysado aragtaa fiicanta deegiyo waxa baraa وقرتي أيه هذا وحن آذينا جوري وأنا جيني سوما كاران يا حافظ حاجة واي حافظ وجر إسماعيل عبد القادر حاج عبدي waxa uu nasiib u yeeshay in codsigiisa si naxariis leh ay uga damqato gabar Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa ayna damaanad qaado waxbarashada iyo noloshiisa taas labadan karta kana ta Ismaaciil oo ah agoon aabihii uu geeriyooday waxa uu doortay in uu waxbarto isagoo guriga la jooga hooyadiis walaalaha la dhashay isla markaana uu ka tanaasulo noloshii uu ii sheegay in markii hore duruuf iyo dan isbiirsaday ay ku qasbeen walaasha Soomaaliyeed ee Ismaaciil damaanad qaaday oo iga codsatay inaanan isticmaalin magaceeda wadanka ay joogto iyo muuqaalkeeda balse intii warbixintan aan diyaarinayay aan ula baxay naxariis badan waxa ay hadda dhiiri gelinaysaa Ismaaciil oo diyaar u ah in uu dib u bilaabo noloshii caadiga ahayd مرد من قاها وحاول برا اسكول برا اي وين ما تحضرتي اسكول كاربتو ابوان كلا حضر ان شاء الله ابوان ساعه كدب سو عادانك اي hawlaashii waa maadciya maanta kadib waxa diyaar u ah in aan wax barto oo guriga joogo waxa hadda ila jooga Ismaaciil marka laga soo tago oo aad wada taqaanaan Saciid oo Ismaaciil la dhashay wallahi hadii yimid walaalkeena waa waxaan rabnaa alxamdulillah hadii uu ka soo tago meeshaas oo gurigeena lagu keenay alxamdulillah waa qeyr wallahi inuu wax barto waa asagana waa rabiya waa anagana waa la rabnaa soo macsalaamaynta saaxiibadiis iyo maalmo nasashaha kadib hayaan iyo hadaf dheer oo hiigsi leh ayaa halkan uga bilaabanaya Ismaaciil dugsiga Albashar oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayuu u diyaarsan yahay Ismaaciil in hadda laga diiwaan geliyo ardayga in loo diiwaan geliyo oo ardayda iskuulka uu ka mid noqdo marka imtixaan oo ka qaado qalmo fasalka la geenayo si aan ogaano ardayga wadaan soo dhaweynayna waxaan ku dhaqi doonaa heerka ardayda lagu dhaqo Ismaaciil oo ah nin maskax fudud waxbarashadana jecel balse xaalad iyo caruurnimo ay isku biirsadeen waxa uu wali xasuustaa wixii uu hore u soo bartay imtixaan lagu ogaanayo heerka waxbarashada iyo fasalka uu qalmo ayuuna hadda u fadhiyaa lama qoro saddex
4 6 ودفو 6 dhowr mar oo waxbarashadu ay ka kala go'day waxa uu ii sheegay in uu gaaray ilaa fasalka koowaad ee dugsiga sare balse maamulaha dugsiga Albashar Ustaad Asad Abukar Maxamuud ayaa sheegay in Ismaaciil uu yahay nin faham fiican natiijada imtixaanka tijaabada ahna ee laga qaaday ay noqotay in la geeyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ugu dambeeya ku dar ka jar ku dhifo u qaybi iyo fraction Ismaaciil intii karaankiisa ahayd xaqiiqatan wuu ka shaqeeyay sidaad ku arki doontaan qoraalka in la fadhiisiyo galaaskii ku xigay oo ahaa galaaska 8aad Ismaaciil isbedel ayuu u diyaarsan yahay waxa uuna rajaynayaa in dhalinyaradii uu ka soo tagay aysan waqtigooda meeshaas ku beerdareynin uuna hormuud u noqdo sidii ay uga soo bixi lahaayeen aad ugu faraxsanahay maanta marxada ku sugnaa heerkii hore hadda farq weyn u dhaxay hadda waxbarashada soo galmo hadda waxaan gelaynaa fasalka waxbarashada waana halka uu waxbarashadiisa ka ambaqaadayo waayahay halkan waa fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Albashar oo Ismaaciil uu ku soo biiray Ismaaciil maanta waxa uu helay saaxiibo ka duwan saaxiibada hore waxaana hadda u diyaarsan yahay in uu ka mid noqdo fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Albashar gaar ahaan saaxiibada halkan fadhiya oo iyagu u diyaarsan in Ismaaciil halkan ay ku soo dhaweeyaan weli waxaa garab u sii baahan saaxiibadii Ismaaciil uu ka soo tagay oo hubaal ay tahay qaarkood inay ka duruuf iyo xaalad adag yihiin Ismaaciil welina diif iyo daryeel xumi mustaqbal sii lumaya ay u dheer tahay darbigii Ismaaciil laga soo waday kula daala dhacaya Ismaaciil ay guula ku rajinaya Maxamed Cabdi Xasan Iidle Dalsan TV Muqdisho